بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا channel keena ciyaaraha iyo xubinteena aynu kaga hadlaynay wixii ka soo cusboonaaday wararka ciyaaraha waxaynu ku haynaa kooxda Manchester United oo ka adkaatay kooxda Wolves una gudubtay wareegga afraad ee FA Cup-ka Ingiriiska Rashford oo isagoo ciyaartii xalay dhaawac soo gaaray ma safan doona ciyaarta kooxda Liverpool ay leeyihiin maalinta Axadda ah sidoo kale waxaan idinku haynaa wararkii suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin Cavani oo la dul saaray lacag qeyr caadi ah iyo sababta keentay Arsenal iyo Tottenham oo ku lagdamaya saxiixa ciyaaryahan u dheela kooxda Getafe Tottenham ayaa tartan adag ka wajahaysa saxiixa Piontek kaasoo ay kala kulmayso kooxda Sevilla iyo weliba warar kale oo xiiso badan kooxda Manchester United ayaa habeenkii xalay ahayd hal gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda Wolverhampton Wanderers ama loo soo gaabiyo Wolves oo xalay marti ugu ahayd garoonka masraxa riyooyinka Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer kooxdiisa ayaan hal goolna ku laadin shabaqa ciyaartii hore ee ka dhacday garoonka Wolves balse habeenkii xalay ahayd abuurtay fursado aad u waaweyn iyadoona kubad uu maanta goolka ku bilaabi lahaa haafkii hore uu si fiican difaacay Rudy halka Daniel James isna kubad uu ka diiday boortaha Wolves halka gool ee Manchester United ayaa daqiiqadii 67 waxa dhaliyay ciyaaryahan Juan Emmanuel Mata kaasoo kubadda ka dulqaaday boortaha dibna u soo xasuusiyay taageerayaasha Manchester United wuxuu ahaa xilli ciyaareedadii 2012 iyo 2013 inkastoo ay maalmo adag ku tahay kooxo badan oo Premier League sababtoo ah ciyaaro badan oo la ciyaarayo inta lagu guda jiro bishan January ayaa tababare Solskjaer waxa uu u soo magacaabay FA Cup-ka ciyaartan xul adag oo wajahaya kooxda Wolves ciyaaryahan Rashford ayaa la soo galiyay daqiiqadii 63 iyadoona dhowr daqiiqo kadib gool la dhaliyay balse qorshihii Ole Gunnar Solskjaer ee ahaa inuu ku khamaaro ciyaarta isagoona soo galiyay Rashford ayaa isaga ku soo laba celiyay isagoona Rashford ciyaarta kaga baxay dhaawac shakina la geliyay inuu safan doono kulanka aadka loo sugayo ee Liverpool kooxda Manchester United ayaa u safri doonta labada kooxood ee Watford ama Tranmere labada kooxood oo iyaguna ciyaartoodii hore ku soo dhamaatay barbardhac labada kooxood oo ciyaarta ay isbuucan ciyaari lahaayeen ay ku celiska ahayd dib loo dhigay sababo roob culus oo garoonka da'ay awgeed ciyaarta kadib Solskjaer ayaa qirtay inuu ciyaarsiintii Rashford ay ahayd qorshe isaga ku soo laba celiyay wararka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda aanu idinka hayno ayaa waxa ugu horeeya ciyaaryahanka Edinson Cavani oo ayaamahanba lala xiriirinayay kooxda Atletico Madrid ayaa la dul saaray lacag qeyr caadi ah marka loo eego marxaladda uu marayo iyo heshiiskiisa inta ka dhiman laakiin maxaa sababay in la dul saaro lacagtan inta leeg madaxweynayaasha labada kooxood ee PSG iyo Atletico Madrid ayaa horaantii usbuucan ku kulmay xafiiska kooxda PSG iyadoona kooxda Atletico ay doonaysay 10 milyan inay ku iibsato ciyaartoygan ayaa kooxda PSG waxa uu sheegtay ku soo daraan 20 milyan oo euro sidaasna ay ku keenaan 30 milyan waa haddii ay doonayaan inay helaan khidmadaha iyo adeegga xidigan madaxweynaha kooxda PSG Nasser Al Khalifi ayaa arrintan u sababeeyay laba sababood koowaad ayaa ah inuu yahay ciyaaryahankani mid kooxda wax weyn ugu fadhiya inkastoo aanu in badan ku soo bilaaban talabaad ayaana lagu sheegay inaanay doonayn inay xoojiyaan koox ay ku wada jiraan Champions League sida Atletico oo kale sida daraadeedna loo sheegay kooxda Atletico haddii ay doonayso inay ciyaaryahankan helaan bishan January inay ku qaadan karaan 30 milyan oo euro Cavani inkasta oo heshiiskiisu u dhacayo xagaaga soo aadan ayaa haddana kooxda PSG sheegtay inuu laga maarmaan u yahay kooxdooda wadahadallada ayaa in badan qaadan doona laakiin Edinson Cavani ayaa isagu sheegay inaan kooxda la safrayn inta arrinkan la xalinayo kooxaha Arsenal iyo Tottenham ee kooxda dhisan waqooyiga London ayaa ku lagdamaya saxiixa ciyaaryahanka Jane Deconam oo ciyaara kooxda Getafe ee waddanka Spain Jane ayaa bandhig fiican la soo sameeyay kooxda reer Spain labada xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay iyadoona labada xilli ciyaareed loo magacaabay xubin ka mid ah kooxda sanadka ee La Liga waa arrin aan qarsoonayn in Tottenham ay u baahan tahay difaac adag kadib kulamadii badnaa ee Spurs ku guuldareysatay inay shabaq nadiif ah ilaashadaan iyadoo difaacyahanada Serge Aurier iyo Sanchez labadaba shaki la geliyay inay yihiin ciyaaryahano u qalma koox ka ciyaaraysa Premier League iyo weliba Champions League halka Arsenal dhankeeda ay doonayso inay buuxiso booska la filayo inuu ka baxo Mustafi kaasoo la filayo inuu bishan ku biiro kooxda reer Turki ee Galatasaray iyo weliba difaac dambeedkoodii Chambers oo dhaawac culus soo gaaray lana filayo inuu maqnaan doono inta badan ee ka harsan xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan reer Togo oo hadda 28 jir noqday
ayay kooxaha isku haystaa rajaynayaan inay ku qaataan qiimaha ugu jaban ee ugu macquulsan. Haddaynu dhinaca kale eegno, kooxda Tottenham ayaa sidoo kale tartan adag ka wajahaysa saxiixa ciyaaryahanka Christophe Biontek, kaasoo ay kala kulmayso kooxda Sevilla. Spurs ayaa baahi aad u qabta weeraryahan kadib dhaawacii soo gaaray kabtanka xigeenkooda Harry Kane, kaasoo la filayo inuu dib ugu soo noqon doono tababarka horraanta bisha Abriil. Tottenham ayaa miiska soo saartay inay doonayaan inay ciyaaryahanka ku qaataan amaah, balse kooxda AC Milan ayaa sheegtay inay doonayaan 30 milyan oo euro. Ciyaaryahankan oo ay AC Milan Janawaridii sanadkii hore kala soo wareegeen kooxda Genoa ayaa hadda qaab ciyaareedkiisii isbedelay, isagoona dhaliyay 5 gool oo kaliya 19 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan. Kooxaha kale ee ka dhisan waddanka Ingiriiska ee Crystal Palace iyo Aston Villa ayaa labaduba xiiseynaya ciyaaryahankan, laakiin haddii uu ciyaaryahanku dabco inuu England yimaado, ayaa la sheegayaa inay Tottenham tahay ta ugu cadcad ee uu ku biiri karo. Fadlan share dheh fiidiyowga si aad ula wadaagtid asxaabtaada, like saar, hana ilaawin inaad subscribe saartid channelka si ay kuu soo gaadhaan wax walba oo cusub oo aan soo gelino adoo daaraya gambaleelka digniinta.